تناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر هذه محاضرة التي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره وسار على نهجه ودعا بدعوته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد waxaynu soo gaarnay beydka 28aad wuxuu yiri muallifka kitaabka ama naadimku wuxuu yiri فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بوت على الله والنذر وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظا ذات لهب لا تبغي ولا تذر وأبرأ من صنفين قد لعنا معا فذا أظهر الإرجى وذا أنكر القدر وما قاله جهم فحقا ضلالة وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر وجعد فقد أرداه خبث مقاله وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر وسقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر فما قاله قد بان للحق ظاهرا وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر وبالعقل فيما يزعمون تباينوا وكلهم قد فارق العقل لو شعر فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا ولازم طريق الحق والنص واصطبر وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر. halkaas ayuu kusoo gabagabeeyay nadmigii aynu soo qaadnay habeen hore. waxa uu leeyahay fadhu rafdi kanu saaxiibka diidmada ama rafdinta wuxuu ka wada waa shiiciga weeye mansuubun waxa loo nisbeeyay ila shirki baa loo nisbeeyay yani shirki baa loo tiiriyay عادل مثل يحذي ويه عن الحق حق مثل يحذي ويه ذو بهت بين صاحب على الله اللي بين أبورته يو النذر خصوصي اللي بين أبورته وصاحبه يعني وام حي قرد اللي يراهده رافضه ووجد إن مثل هذا الشيء هذا إنه نقانه وحوي شركي بوحوي اللو تيريي سدا أي علماء soo naqliyeena waa qoladii ugu horeysay ee lagu barto qabuur la dul dago iyo qabuur la caabudo iyo in cibaadada loo leexiyo ciidan Allah subhanahu wa ta'ala in maxaan ku dhahaa la dhiso meel macaabid ah oo dadku ay isugu yimaadaan oo Ilaahay qeyrkiisa subhanahu wa ta'ala wixii Allah u lahaa lala su'aalo Sheekh Islam Ibn Taymiyyah waxa uu leeyahay in فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب الشرك ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا ببناء المشاهد وتعطيل المساجد وحا ظاهرتي بويري بدعة اللي لا تشيع يا ظاهرتي وحيكون ظاهرتي بويري إيضا وأبو يري فرها الباب الشركة مركز الزنادقة أي أرنتي قبصدين أو أي تلضوا دي أي توليين ذلك دي الله وياش هانا أمر waxay ku bixiyeen buu yiri mashaahida iyo meelaha la isugu yimaado iyo adrixada in la weyneeyo oo la dhiso bayna masaajidana ay amreen in la tactiriyo doorkooda aad loo yareeyo sadarteed marka shiici aragtid
waxaad arkaysaa qabri la dul fadhiyo iyo qof dhintay oo la barye iyo mid dhintay oo lagu dul baroortay iyo waxa iyagu mad ugu tegaysaa caadilun cani ilxaqi ay munxarifun cani ilxaqi buu ka wadaa xaqa mid ka leexday oo ka weecday oo waxa weeye garab maray duubuutin cala allah u saaxiib abuu yidhi been lagu beer abuurto alla subxaanahu wa tacaala imaamu shaafici baa waxa laga wariyey inuu yidhi maa ra'aytu ashhada bizuuri min alraafida yani cid ka been badan oo kaga been markhaati fur og weliba nimanka la yidhaha raafida maanan arag buu yidhi in alla lagu been abuurto subxaanahu wa tacaala iyo in nabiga laga been sheego iyo wanudur iyo wadubuutun cala nudur buutin cala nudur yani wuxuu yidhi kuwo ku been abuurta rusushiga nudurtaas waxaa loo jeeda jamcu nadiir bay noqonaysaa oo waa tii allahu qur-aankiisa uu ku lahaa kadabat caadun binnudur iyo kadabat thamuudu binnudur yani thamuud waxay beeniyeen nudurtii iyo kuwii digayay bay beeniyeen buu yidhi alla subxaanahu wa tacaala nimankaas marka waa maxay waa nimankaas ku xadgudbay cali bin abi aalib iyo qeyb ka mid a ahlubeytkii saxaabada intooda kalena lacnada oo firaqa faraha badan iska yeeshay axaadiid baa la soo wariyaa aanan sugnayn oo ku saabsan nimankaasu inay soo bixi doonaan oo uu nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi leeyahay waa mushrikiin ha lala dagaalamo xilligii cali ayay soo baxeen ayagoo cali weyneynaya oo ku haya caliyow anta oo maxay ka wadaan anta ilaahuna ilaahayni baa tahay adigu ayago oo leh ayuu soo baxeen cali waa ka reebay arrintaas wuxuu yidhi warjoojiye wax wadaan oona ku inkiray weliba wuxuu amar ku siiyey inay toobad keenaan ay ka noqdaan waxa ay leeyihiin waa diideen qaar buu ka laayay qaarkii kalena dab buu u shiday uu ku guray saas darteed buu wuxuu yidhaahdaa innii idaa ra'aytu amran munkaran awqadtu naari wa dacawtu qambara yani markii aan arka arrin aan inkiro dabkaygaan shitaa markaasaa ninkii qamar la dhihi jiray oo ka mid ah raggii mawaalidiisa ahaa baan ugu yeeraa inuu ku cadaabo ciddii hawsha siyada ah waxa weeye geysata waxaa kaluu yidhi wacaqdii saxiixun fi lkhawaariji annahum wacaqdii saxiixun wacaqdii ay ictiqaadi aaminsanaanteeda ku saabsan fi lkhawaariji khawaarijta saxiixun waa mid runa oo xaqiiqo ah annahum iyagu wuxuu yidhi kilaabun inay yihiin eeyo tacaawaa ka dhawaaqaysa fii dalaalin baadi gudaheed iyo wa fii sucur naar gudaheedna ka dhawaaqaysa buu yidhi naar iyo baadi niman ka dhawaaqayo inay yihiin ayaa waxa weye ictiqaadkaygu yahay oo qirsanahay buu yidhi wuxuuna soo dheeganhayaa xadiidkii ka sugnaa nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu ku lahaa alkhawaariju kilaabu ahli nnaar nimanka la yidhaha khawaarijta waa eeyada ahlunaarka nimankaas waa niman dhib badan ummadda soo maray oo mushkilad fara badan geystay wey wuxuu yidhi wayuriduhum wuxuu gelinayaa maa shaygii axdathuu ay soo darriyeen oo ay soo kordhiyeen oo diinta ay ku soo dareen oo min maqaalihim hadalkoodii ka mid ahaa ladan naarta ladan la yidhaahdo ayuu gelinayaa daata lahabin ee horaca u saaxiibka ahayd taasoo laa tubqii walaa tadar amabase laa tubaqii walaa tadar waxba aanan baaqi yeelaynin waxbana aanan ka tegin naarta iyada ah ayuu gelin doonaa oo wuxuu kasoo dheeganaya hadalkii rabbi wamaa adraaka maa saqar laa tubqii walaa tadar laakiin wasniga iyo waxa weeye qaafiyada hadalka gabayga oo weliba ra'da ku socdo buu maxaa la yidhahdaa isha kusoo qaatay ladi iyo isu waafajiyey laa tubqii walaa tadarta isu waafajiyey axaadiid badan baa nabiga ka sugan salawatu ullahi wasalaamu calayhi nimanka wasfigooda uu kaga hadlahayo oo abi sacuud alqudri iyo jamaaco ka mid ah saxaabadii waxay nabiga ka wariyeen salawatu ullahi wasalaamu calayhi inuu nabigu yihi salawatu ullahi wasalaamu calayh yakhruju fiikum aqwaamun axdaathu lasnaani sufahaau alaxlaami taxqiruuna salaatakum maca salaatihim wa siyaabakum maca siyaamihim wa qiraa'atakum maca qiraa'atihim yamruquuna min addiini kama yamruqu الsahmu min alramiya yundaru fii naslihi falaa yajidu shay-an وينظر في قدده فلا يجد شيئا وينظر في نضيه فلا يرى شيئا سبق الفرث والدم يقتلهم
أولى الفئتين بالحق. wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidka Ahmad warinayo wuxuu leeyahay waxa arki doono in ka soo dhaxbixi doono aqwaam baa in ka soo dhaxbixi doono dhalinyara ahdathul asnan dadadu ay yartahay sufahaul ahlam uquushoodu ay aad u gaaban tahay oo mangaab laakiin markii cibaadadka la joogo salaadiina wada xaqiraysaan oo yaraysanaysan markii la barbar dhigo salaadii tukanayaan soonkiina wada yaraysanaysan oo xaqiraysaan markii la barbar dhigo soonkoodi sida uu yahay qiraa'adina quraanka waa xaqiraysaan oo yaraysanaysan marka la barbar dhigo qiraa'ada quraanka laakiin maxaa dhibkoodu yahay dhibkoodu waxa uu yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi diinka waxay uga dhex dusahayaan sida leebka uu uga dhex duso waxa lagu galay sida leebku uga dhex duso ama falaada ama xabada ee uga dhex dusto wixii lagu tuuraa oo muxuu yiri wuxuu fiirinayaa buu yiri leebki afkiisi gamuunka uu fiirinayaa ينظر في نصره فلا يجد شيئا حكوا أركي ماي يعني هو محي ديك إيو ديعان إيو حموت نفكنا وكان حدوث نفك ما يكون يقول لا كو وحو فيرنا يا بيري انتي ود حيسي بالش إيو محان كلها أفكه هوري عارتك وحكوا أركي ماي ديعان كو أركي ماي أو وحو فيرنا يا بيري يعني بالش الدم كيدا دجنا فلانا جدال أملكه وحكوا أركي ماي بيري wuxuu yiri sabaqa al-farth wad-dam yani uuski iyo dhiigiiba waa ka hormar waa ka dheeriyay suu waxa weey isha xawliga uu kaga dhaxbaxay labada fi'o ee isdiriri doonta ee ummadayda kamid ah midda xaqqa maxaa la yiraahdaa isha awla al-fi'atayn bil haqqi ayaa waxa weey tan xaqqa si mudan oo xaqqa leh baa la dagaalami doonto oo dili doonta biir nabi sallallahu alayhi wasallam wa muawiya iyo ali sida darteed baa ninkii uu sheegay nabi sallallahu alayhi wasallam alayhi inuu maxaan ku dhahaa garabka ku leeyahay naas ee laga dhaxeli doonaa ciidankii ka soo jeeday dhinaca kale markii ilaahay kuga sabadiiday ali uu la dagaalamay nimanka khawaarijta yani ali muawiya way isgaleen nimanka khawaarijta waxa weey isha la dagaalameen ali radiyallahu anhu warda qolada marka labada qolo oo muslimiintu isdiri doonto ay dili doonto qoladaas baa xooga qolada dili doonta baa labada qolo islayn doonto xaq u dhow nabi sallallahu alayhi wasallam القويسرة مركز لقد حلي عيدا كي ولا يرعى علي ونك النبي وتلمامي صلى الله عليه وسلم عليه عيدا كان يرسل الجديد لقد حلي على سجود بالله رضي الله عنه وارضاه سجود أي الله داعي كم النام فربنا بلقت لي ولا إياه نمن كاسو نيكو جوري وحكوسه بحي ولو علماء ضعف ربنا يكشف قالوا إلى هذا نيكو جوري حل النبي قبل الأركي صلى الله عليه وسلم عليه ونك دي يجري النبي كله يجري مركز وكان قيبية غنائمتي اعدل يا محمد فإنك لم تعدل عدالة سببية عدالة ما نصبينين نكاسي وحوي كسو فرعمين وحديث سيدة وشيغة هيو نبي وحديث دون صلى الله عليه وسلم عليه يخرج من طيطي هذا الرجل أقوام كسو حديث كشيغ دونا طبعا كسو بيحي دونا نكا كان وحوي نبر كيسا يعني قوليها كسو بيحي دونا الصلاة دونا اتين وحقيري دون تان القرآن آخر سكودي وهل مجرى أو ليه دون دينك كان حدوسي دونا دينك بيكان حدوسي دونا وسيدة الليبك وقان حبح والليبك هذا أمو ذي الناف كم إنو كبرا عي ومركات فيرسو qalleelkiisa iyo degdeg uga dhax baxay aadan moodaynin ka hormaray waliba dhiigii intuusan dhiig taabanin meeshii maray intuusan dhiig taabanin ayuu meeshii maray marka xilligii ugu horeeyay aad u muuqda waxay xilligii Uthman bin Affan radiyallahu anhu la dilay ay Uthman ku baxeen oo ayagii sababtu ah dilkiisa oo dilayba oo gurigiisa ku weeraray marka kadibna Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu bay la dirreen oo la dagaalameen ilaa intuu in badan ka laayay markii dambe iyaga gacantooda ku baxay iyaga gacantooda uu ku baxay inta ka bacdi waxay waxa sameeyaan waliba diin u dhawaansho iyo Allah subhanahu wa ta'ala qurbeen ugu sameeyaan bay amiirka muuminiinta u dilayaan ama warada muuminiinta u leenayaan inta ka bacdina muawiya la dirreen oo markii hore darafkiisa ay ka soo jeedeen maalmihii hore cali isqabanayeen waxay hadana la dagaalameen khulafadii bani umayya oo dhan bay mid ula dagaalameen mid ula dirreen النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الكيس وحكم إذا إنه يريد من شق عصا المسلمين والمسلمون في إسلام دامج فقد خلع ربقة الإسلام من عنق يعني قفك جاحا ضدك المسلمين تأول جرك وذا أيها المسلمين تسكول يهيهين وحول لغنتي سكسي بي حرق إسلام كأيو كسي بي النبي صلى الله عليه وسلم عليه مركا وحال صمينا يا ولا ويدين يا أو ولا توبد ويدين يا وحيوتك كنت أغيهين هذا نقطة واحد نوعاسة
way aaminsan yihiin inay kaligood muslimiin yihiin waa la toobad weydiinaya haddii ay dilaanna waa la dilaya oo la dagaalamaya oo waa laga shaqaysiinaya seefta oo haddii batilkooda ku taagnaadaan laakiin shuruud baa jirto oo in koodii carre aan la eryanin oo la baacsanin iyo inaanan koodii dhaawaca aan la israacinin iyo in ilaahay kuma samadiiday arrimaha noocaas oo kutubta fiqiga ah loogu tegayo baa loo muraacaynaya ilaahay maantana waa ay jiraan waa fara badan yihiin magacyadii bayaysan jirin oo khawaarij yaanay ku magacuunaanin laakiin dadkii fikirkii laftiisii xambaarsan unbaa jooga oo asmaa kale ku jooga waxaa aada loo xasuusan yahay inay joogaan nimanka la yidhahdo waxa weeye isheeg altakfiir walhijra nimanka la yidhahdo oo un imtidaad u ah nimankaas iyo caqiidadoodii waxyaabaha caqaa'idkooda ka mid ah waa maxay inay dad kabiire ku gaalaysiiyaan oo in ilahi kuma samadiiday murtakibu kabiiraha ay ka aaminsan yihiin inuu yahay waa maxay mukhalladun fi nnaar inuu yahay oo yani muslimna aanu ahayn oo qofkii ku dhaco dembi weyn uu diinta ka saarayo dembiga yaroo banaysan haddii la doone arrimaha noocaas ah kuwan hadda joogo waa fara badan yihiin oo asmaa fara badan bay leeyihiin azaariqada ka mid ah ibaadiyada ka mid ah waxaa ka mid a nimanka la yihahda waxa weeye isheeg bayhasiyada ka mid ah waxaa ka mid a nimanka la yidhaha cajaaridada niman la yidhaha baa ka mid ah waxaa ka mid a sufriya ka mid ah waxaa ka mid a najdaad iyo rushaydiya iyo thacaaliba iyo cawniya niman la yidhaahdo iyo xawtiya bakaariya jirta iyaga laftooda kuwa la yidhaahdo waa fara badan yihiin xadid walaa xaraj giddigood markaa qasab maaha inay wataan magacii weli ahaa laakiin asmaa kale wataan takfiirkaasa ka mid waxyaabaha ugu waaweyn oo lagu aqoonsado waxaa ka mid ah islaamnimada ay ka xigsadaan ummadda inteeda kale aaminaan in iyagu keligood ay muslimiin yihiin waa qodob dadka waxay ku gaalaysiinayaan wuxuusan sharcigu ku gaalaysiinin inay yihiin waa qodobka labaad qodobka saddexaad inay ka ratibayaan gaalaysiintaas in lagu baxo dadka muslimiinta dhinac looga soo jeedsado mararka qaarkood bay sheeko xoog badan yeelan jireen oo weliba niman dagaal kulul ay noqon jireen oo dad muslimiin oo ahlu sunno ah oo maxaan ku dhahay isha ku taagan kitaabkii intay la diriraan bay soo jebin jireen oo dhagax kusoo dhufan jireen noocaasay ahaayeen ilaa anna waa la helaya dad afkaartii waxna ka wata waxna kaga duwan waa la helayaa marka fikirkooda asaaskiisu waa maxay quluwigaas iyo xadgudubkaas iyo kabadbadintaas lagu sameeyey diinta ayagoo aanan aqoon fara badan oo ku filan aanan u qabin alla diintiisa subxaana wa tacaala maxaa ka mid a caadaadkooda ama waxyaabaha sida aadka loogu garanayo inaysan sunnada nebiga aada u aqoonin fi kulli zamanin wa makaan oo waxay ictimaadaan inta badan uu yahay kitaabka qur-aan kuwa hadda jooga soomaaliya laftood markaad fiiriso waxay soo daliishanayaan oo badna axaadiida nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh waa ay diinta iska hor imaan mayso haddii laisu keenay axaadiidii aayadka waa isfasiraya aayad baa ruf lasoo siisanaya oo laga yaaba tii fasiraysay inaan loo soo akrinin ama xadiidka fasirayay uusan la wadanin markaasaa wuxuu doonayaa xukum inuu halka ka farciyo xukumkaas ciddii qaadatana uu waxa weeye ku fuliyo ciddii kula fulin weydana uu ictibaariyay inay gaala yihiin uu ictibaariyo waxyaabaa qosolka badan oo laga sheegay kuwa takfiirka waxa weeye dhowr baa waxay ku jireen yani xabsi oo siday had boqolo loola baxayay u dhammaanhayeen baa waxaa isku soo haray waxa weeye ii sheeg labo mise saddex markaasaa waxay yidhaahdeen adduunka waxa ku nool saddexdeennaa keliya unba islaamka ah yani quluwiga meesha yaalintuu leegi waa ko xoogaa ka bacdi baa la joogo waa la murmurmayo markaasaa midba mid kala gaadhaysiiyo yidhi maya wallahi gaal baan tahay taasaad ku gaalowday maya adiguna gaal baa tahay taasaad ku gaalowday kii soo harayba wuxuu yidhi aniguna wallahi waa gaaloobay macnaheedu waa maxay adduunka qof muslima ma saaro adduunka hal qof oo muslima ma saaro dad saa u cilmi yar una caqli yar weeye aalaa inta badanna dhiigga muslimiinta bannaysta oo kaga soo dhaco meel aan laga filanaynin masar bay waa dhexe ka bilowdeen oo ay kaga bilowdeen markii dadkii muslimiinta ahaa ee waxa weeye saxwada isu taaga islaamiga ahayd xabsiyada lagu garay oo dhibaatooyinka faraha badan loo geystay oo jamaal cabdinaasir uu fidiyey cafiska oo uu yidhi ayaroo gibina ninkii fikirkiisii hore ka laabtaa waxa weeye waan cafinaynaa oo waan sii daynaynaa oo dadkii ay kala qaybsameen qolo ka aamustay iyo qolo arrintii ajiibtay oo weliba dowladdii shaqaalo u noqotay iyo kuwo dantooda ay ahayd inay ka baxaan xabsiga baa waxaa kuwii soo haray baa waxay yidhaahdeen qoladii baxaydina waa gaalo kuwii ajiibeenna waa gaalo kale kuwii raacayna waa murtadiin waxa soo haray marka waa inaga weeye oo aan maxaa la yidhaha ku qanacsanayn wixii ay la yimaadeen arrimahaas marka waxay ka ratibeen waa maxay axkaam axkaamtaa ka ratib mayso waa midda kaliftay marka dambe inay la dagaalamo dadka muslimiinta ah oo dagaal ay ku kiciyaan oo waxa weeye isheeg ay yani tasalsul ka sameeyeen caqiidadoodii oo ay yidhaahdeen dadka gaalada qofkan sii gaalaysin isaguna waa gaaloobahaya dadka marka ahlulcilmiga ah oo iyaga xitaa la fikirka oo la manhajka ah oo isku maxaan ku dhahaa isheeg ay yihiin masaadirta
laftooda waxay ku gaalaysiinayaan maadaama kuwan annagu aan gaaladu aragna aysan gaalo u arkin ayuuna gaalo wey masalada takfiirintana maaha masalada ummadda ka dhexaysa culima iskale qudaad baa iskale iyagay u taallaa masalana ma aha taqliidi oho qof loo daba fadhiisan karo hebel baa hebel takfiiriya anna waa takfiirinaya la dhihi kara maaha waayo masalada gaalaysiinta dadka la gaalaysiiyo arrin sahlan maaha ilahi subxana wa tacala baa iskale alla yaqaana cidda u islaamtay iyo cidda ku kufriday nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh iyadoo munaafiqiin ku tukanayaan masaajidkiisa oo ay tiro badan yihiin oo la garanayo bay haddana sawaadka muslimiinta ka mid ahaayeen oo gaalo weeye cidina aanay bannaanka la soo istaagaynin ayib wixii markaa aan jiri jirin marka qofka doonaya hadda inuu ta'siiriyo oo uu yidhaahdo anigaa dadka u kala soocaya mu'min iyo munaafiq iyo gaal arrinkaasu arrin sahlan runtii ma uu aha arrin sahlan ma uu aha wuxuu yidhi qaala الناظم رحمه الله وأبرأ من صنفين قد لعنا معا فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر وأبرأ وحن كبري أهي بير وأن ديرك أهي من صنفين لبر صنفي أما لبقرأ وقد حقيقيه اللعنا للعنضي معا سوى ذجر اللعنضي فذا كرب يري أظهر الإرجاء وحو موجستي بيري دقيت بو موجستي وذا كاننا أنكر القدر قدر كيبو إنكري بير لبقرأ ومن اللي يرهدو المرجئة من اللي يرهدو القدرية لبدا بقول ليه بري من لبدا بكاهي بير بري أيا كا مرجئة وحا مرجئة لوغو مغعابي دبدقيد وح اللي يرهدو وإرجاء ودبدقيد باي قباني أمن سيئين oo ay dadkana ugu yeereen waxaana laga soo qaatay oo ay ka wadaan camalka iyo in la kala saaro shayga la yiraahdo musamaha iimaanka oo la yiraahdo iimaankuna waa shay camalkuna waa shay kale qof walba oo marka iimaanka iyo camalkii saalixa ay ka ratimayay kala reebana waxa la leeyahay ahlu-sunna wal jamaa waxay dhahaan murji bay dhahaan yani waa maxay kala dibdhiga waxa kala reebayaan waxayna iyaga laftooda u sii qaybsamaan أصناف كلا جديسا وهالقرو ما